Adiga iyo ubadkaaga ma ku dhibban tihiin barashada Qur'aanka Kariimka? Haddaba dhegeyso fiidiyowan adiga ayuu ku anfici doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalaha qaaliga soo dhawaada. Hooyooyin sidee ilmahena ku bari karnaa Qur'aanka Kariimka anagoo joogno gurigeena, banaan aadin oo dugsi geynin, qabow iyo dabayl iyo roob iyo dhaxan nagu dhicin. Waxaa u baahan tahay buug iyo qalin iyo kitaab. Cunug kasta buuggiisa, qalinkiisa, kitaabkiisa u soo diyaari. Nambar 1 waa in adiga taqaanaa Qur'aanka sida loo akhriyo. Farbarashadana qori kartaa. 114 Qur'aankana meel kasta ka akhrin kartaa. Inaa xifdisan tahay ma ahan, waa inaa akhrin kartaa. Macnaa haddii xifdisan tahayna maasha Allah. Allah ku siyaadiyo. Laakiin waa inaa akhrin kartaa si cunugaada casharka ugu dhageysatid ula akhrisidna. Hooyooyin maanta ilmaheen anaga ayay u baahan yihiin. Cunugaada intuu yar yahay haddii adigaada waqti siinin yaa ku imaanayo oo waqti siinayo. Adiga ayaa dhashay hoostaada laga soo qaaday oo mas'uulka ah. Haddii adigaada maanta barin wax kasto yaa baraayo. Hooyo maxaa cunugaada waqti sii. Nambar 1 farbarashada ka dhis. Cunuga hadduu farta akhrin karo oo qori karo 114 meeshii loo soo bixiyay inuu akhrisan karo. Maasha Allah waa guul. Way fududahay markii inuu xifdiyo. Markaa ka dhistid farbarashada kadib waxaa leedahay hooyo 5 sadar. 5 aayad maahan sababtoo ah aayadaha qaar way gagaaban yihiin, aayadaha qaarna way dhaadheer yihiin. Sidaas darteeda maalin kasta 5 sadar ha qoro buug ha ku qorto. Aniga buugaga noo taalo ku qoranaa 5 sadar cunuga markuu qoro waa la jilcinaysaa kadib soo xifdiyaa leedahay 30 daqiiqo kuma qaadanayso. Markuu xifdiyo haddana iga soo baxaa leedahay habeenkii intuu seexanina waa kasii dhageysanaysaa, waa la subcinaysaa 5taas aayad uu qorayna waa ka dhageysanaysaa. Maasha Allah haddii aad maalin kasta samaysid wallahi faa'iidadeeda waa arki doontaa. Cunugii kuma dhibtoonayo waa wax fudud maasha Allah. Adigina kuma dhibtoonaysid asigina ma nacayo. Xaafidul Qur'aan wuu noqonayaa maasha Allah. Barowey soo tijaabi taas insha Allah. Waxaan rajaynayaa inaad ku liibaani doontiin. Salaadana isla tugta cunuga. Salaada cunuga keligiis haddii loo diro in badan waa aragnay. Cunuga gacmihii wajiga inta soo qaquyo wuxuu ku leeyahay waa weysaystay hooyo waa tugtay. Waana beentis. Laakiin jamaaco ku tugta markaas maasha Allah ajarkeedana waa leedihiin. Cunugaadana waxay u noqonaysaa tarbiyo. Maskaxdiisa gelay hodhow markuu weynaado ilmo dhalo ilmihiisii ku sii tarbiyeynaya maasha Allah. Ajirna waa ka helaysiin. Hooyo cunugaada ku dadaal. Maanta kuu baahan yahay. Beri markuu weynaado adiga ayaa u baahan asiga kuma baahno. Ilmaheen intay yar yihiin wax barno. Qur'aanka kula dadaalno. Farbarashadana saani sheegay soo tijaabiya insha Allah. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha noo fududeeyo Qur'aanka. Ilmaheenna ha u fududeeyo. Ilmahana ha noo xifdiyo oo saalixiin ha nooga dhigo. Inta awlaad haysan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilmu saalix ha siiyo. Waan isku soo duceyna meel kasta aad joogtiin insha Allah casharkeena iyo casharka xiga doono. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.